السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو حمزة عمرة maanta asxaabi waxaan baran doonaa ama wada arki doonaa sida loo ogaado wifi-gaaga cidda isticmaalaysa ee ku connect garaysan marka waxaan arki doonaa app yar oo ku saacidaya ama ku fududeynaya inuu ku iskaan gareeyo cid walbato ku xiran wifi-gaaga ciddaas wuxuu ku sheegayaa mobilka uu wato magaciisa wuxuu ku sheegayaa IP addresskiisa iyo MAC addresskiisa marka appkan wuxuu leeyahay isagoo Android app uu jira isagoo maxaan dhahay software laptopka loogu talagalay inuu jira hadda kan wada arki doono waa isagoo laptopka ku jira sidoo kalena mobilka hadii aad u soo download garaysto Fing ayaa la dhahaa Play Store ka dad ku qorto Fing waad soo dejisan kartaa waad isticmaali kartaa wana ku iskaan gareyn doonaa marka insha Allah waxaan arki doonaa sidoo kale wifi routerkaaga sida ugu soo eegi lahayd dadka isticmaalaya MAC addresskooda iyo IP addresskooda marka Fingigan isagu wuxuu dheer yahay mobilka magaciisa ku sheegaya mesela qof aad u gelisay maxaan dhahay wifi passwordga mobilkiisa qofkii uu ka tagayba waxaad ugu talagashay saacad inuu isticmaalo saacad ka bacdi qofkii ku jira aragtay mobilkiisa xasuusta mobilkiisa magaciisa xubaha ka soo qaad inuu Apple waxaan jeedaa iPhone ama baynuha Samsung Galaxy oo kale A10s oo kale inuu yahay si aad u ogaato magaca maxaan dhahay IP addresska ama cidda ku soo connect garaysan wifi-gaaga application-ka wuxuu ka saaciday inuu ku sheego magaca mobilka isticmaalaya IP addresskiisa iyo MAC addresskiisa sidoo kale waxaan arki doonaa wifi routerka imkaan aniga isticmaalaya waxa weeye ZTE sida loo soo eego dadka ku connect garaysan MAC addresskooda iyo IP addresskooda cashirka xigana wuxuu noqon doonaa qaabka looga xanibo amaba looga saaro dadka isticmaalaya wifi-gaaga okay bismillaahir rahmaanir rahiim browserkeena haddaan soo furka maxaan dhahay aad wifi routerkaaga aad uga soo eegi lahayd cidda isticmaalaysa aan wifi routerka isticmaalay waa ZTE horta marka ugu horeysa waxaan ku qori doonaa IP addresska wifi routerkayga 192.168.1.1 maxaan dhahaa markuu ii soo baxo waxaan ku qori doonaa admin aan ku qoro xagana passwordigi aan ku qoro markuu ii galo ka bacdi interface-kii uu ku soo muuqdo ZTE-gaaga laga maamulay ama administration interface-kii marka uu ku soo baxo waxaad ku dul jeedaysaa network markaad ku dul jeedo hadda waxaan u soconaa qaabkan soo eegi lahayn dadka ku connect garaysan wifi-geena MAC addresskooda iyo IP addresskooda kaliya toon na tusi doonaa wifi routerku laakiin nama tusay mobilka magaciisa appkan aan imika soo wadnay Fing la dhaho wuxuu tusi doonaa oo dheer yahay wifi routerka magaca mobilka xitaa ku sheegaya William aan ku dul jeedno William WLNA markaan ku dul jeedno xagan basic SSID setting security access control list associated devices waa kan mobilada ku soo connect garaysan IP addresskooda iyo MAC addresskooda xagan ayuu naga tusi doonaa marka click baan nahaynaa associated devices waxaan arki doonaa inta qof ay ku soo connect garaysan kow laba kaas ma garanayo 00 wadi 3 4 qof ku soo connect garaysan oo mid yahay wifi routerka laftiisa waxay la tahay kan 00 ka dhigay isaga laftiisa inuu yahay ma kala sheegi karo laakiin intaas oo qof isticmaalaysa hadda waxa laga yaabaa waxaan arki doonaa video ku xiga qaabka looga xiro dadka ku connect garaysan markaad ogaato MAC addresskooda iyo IP addresskooda hadda hadii aad istiraado cid ka saar ma kala garanaysid ma saaxiibka ka saaraysaa ma qof kale ka saaraysaa ma qof customerkiyo kula fadhiya oo wifi isticmaalaya ka saaraysaa ma kala saari karisid si aad u kala ogaato appkan imikaan insha Allah arki doono wuxuu noo saacidi doonaa inaan ogaano magaca iyo maxaan dhahaa IP addresska iyo MAC addresska qofkaas marka bismillaahir rahmaanir rahiim hadii new tab aan furo oo Fing ku qoro appkan video gaar ah ka soo duubi doona sida loo soo download garaysto sida loogu shubto laptopka iyo sida maxaan dhahay markaad scan sameynaysid haddaan arki doonaa qaabka loogu scan gareeyo oo uu kugu sheegi karo cidda ku connect garaysan marka appkan waa kan Fing markaad ku qorto Fing desktop-kaas aad ku dul jeedaysaa waa kan network scanner for Windows ayaa ku qoran ay click markaad tiraado appkan waa kan download Fing desktop marka application waxaad kala ogaataa in mobilkana aad ku isticmaali karto oo maxaan dhahay mobilka laftiisa hadii aad soo downloadaysto Play Store-ka Fing aad ku qorto oo ku iskaan gareynaya cid walbeeto ku connect garaysan maxaan dhahay wifi-ga aad isticmaalaysid
ama ahaw qofka wifi-ga iskale ama ahaw qof wifi-ga isticmaala adi laftaada haddii aadan wifi-ga lahayn waad ogaan kartaa inta qof ay ku connect garaysan magacyadooda magaca mobilkooga MAC addresskooga iyo IP addresskooga appka waa kan video kale kusoo qaadan doonaa qaabka loo download garaysto laakiin anigu hadduu ii downloadaysan yahay oo desktop ku yaala aan furto bismillahi raxmaani raxiim waa kan muxuu ahaa iconkiisa wakaas desktopka ii saaran thing baa la dhahaa double click aan dhaho markuu ii furmo waa kan wuu ii furmay marka ugu horeysa interfacekiisa marka laga soo tago markaad install garaysto sign in buu ku dhihi doonaa email baa la geliyaa email soo geliso wuxuu kusoo dhigi doonaa xoogaa yar bc buu yara galay homekan ayuu ku keeni doonaa homekan markaad uu ku keeno sidan homekan interfacekan imika kuu muuqda ayaa ugu horeeya markaad soo sign in garayso oo gmailkaaga soo geliso emailkaaga ku weydiin doonaa xaggan kusoo keeni doonaa marka intan waxaan noo ka baran doonaa keliya sida loo ogaado shakhsiyaadka ama cidda kusoo xiriirsan ama cidda isticmaalaysa wifi-gaaga seed ogaan kartaa xaggan bartan wifi-gayga horta imika magaciisa wakaa SSID namekiisu waa Hamze maxaan dhahaa see all devices haddii aan ku dul jeedo wuxuu noo soo saarayaa ama iskaan garanaya cid walba oo ku connect garaysan see all devices aan dhahno waa kan xaggana waxaan arkaynay haddii aan dib ugu noqono routerkii oon away aan number labaad ku dul jeedo xaggan intaan ku dul jeedo aan kusoo noqdo associated 1 2 3 4 5 devices ayuu xagga sheegay xaggana 1 2 3 4 5tii waa kuwaas maxaan dhahaa waa kan desktopka laftiisa aan ka isticmaalay aan laptopkan aan ka isticmaalay waa HP Pavilion waka IP addresskiisa isaga double click haddii aan ku dul jeedno wuu na tusi karaa oo waa kan double click haddii ku dul jeedo waa kan IP addresskaagii buu ii soo saaray laptopkayga MAC addresskaygii waa kan laptopkayga processorkiisa inta inuu yahay magaca igu qoran hostnameka desktop sidaas igu qoran first sintiisa xitaa ku sheegaya cajiib weyn maxaan dhahay applicationka wuxuu ku sheegaya waqtigii uu maanta soo galay qofkan anigu 9:26 baan soo connect garay uu ku sheegaya online intaad online ka tahay imika aan uu yahay qofkaasi 32 daqiiqo marka haddii aad ku ganacsanaysid wifi-ga applicationka wuxuu ku faa'iideynaya cidiyowga ku connect garaysan mobilkooda iyo xilligii iyo waqtigii ayaad ku controli kartaa see all devices haddii uu ku noqdo on imika ZTE wifi routerkan kan imika waxa weeye waa routerka laftiisii aan double click dhaho IP addresskiisu waa 111 baa ugu dambaysa MAC addresskiisu waa hostnamekiisu waa home aan ku noqdo haddana aan iskaan gareeyo mobilada kusoo wada xiran oo dhan aan wada eegno Samsung Galaxy A2 Apple iPhone 7 baa ku xiriirsan oo wiil yar abtaan oo meelaha ku isticmaalayo kan labadan qof oo laba qof oo jaarnahay qofkan ciduu yahay eegno IP address waa Android mobilkan magaciisa muu soo sheegin MAC addresskiisina waa kan uu sheegay 32 daqiiqo isagoo ku jira oo 9:27 wifi-ga xilligaas aan shidaheed aniguna soo connect gareysay marka see all devices matalan waxaan arki doonaa cashirka ku xiga ama video ku xiga hadda imika Samsung Galaxy ama iPhone kaas si aan ogaano IP addresskiisa double click ayaan dhahaynaa waa kan IP addresskiisa haddii aan wifi routerka tagno IP addresska waa inaan ku aragno 16 ugu dambeeyo MAC addresskana waa inaan aragno si ay noogu fududaan karto in aan qofkaas ka xiri karno ama ka remove garan karno ama ka block garan karno wifi-geena marka imika haddii routerkii ku noqdo 16 waa kan 192.168.1.6 waa isku mid waa mobilka iPhone-ka ah MAC addresskiisuna 18 baa ugu horeysa 2D na ugu dambaysa wakaas marka videoga waxaan ku arki doonaa videoga ku xiga waxaan ku arki doonaa qaabka looga xiro dadka isticmaalaya wifi-gaaga adoo isticmaalaya wifi routerkaaga associated deviceskiisa eegaya sidoo kalena Thing application isticmaalaya mobilka laftiisa aad rabto inaad ka xidho aad magaciisa aad ka ogaan karto adoo see all devices dhahaya double click ku sii jiiday waa kan Samsung Galaxy iPhone dabadeedna maxaan dhahaye intaad xaggan ka soo akhristo IP addresskiisa qofka aad ka xidhi karis ayaan daawan doonaa marka applicationkan waxaad ogaataa in uu leeyahay maxaan dhahaye mobile app yani Android app inuu leeyahay oo ku soo download mobilka oo scan u dhihi
keliyata inaad soo download oo enter tiraado laga yaabo in email ku weydiiyo emailkaaga gelin iskaan gareyn kartaa dadkana aad ku ogaan kartaa tirada isticmaalaysa magacyada isticmaalaya IP addresskooga iyo hostnamekooga iyo MAC addresskooga xagan wuxuu kale leeyahay aapkan dadka waad kala calaamadaysan kartaa dadka waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dadka aad rabto inaad ka xidho dadka aad rabto inaad u deyso mar walba calaamad gaar aad u samaysan kartaa مثلا dad taas voice recorder ko kale oo eeg iconkiisi aad ku jiidato dadka ku khaaska mar walba inay ku jiraan aad rabto dadka mararka qaarkood markuu kugu culusaado aad rabto inaad ka saarto kolba calaamad ayaad saaran karaysaa aapkan video ka xiga ayaan arki doonaa qaabka u soo download galaysan lahayd loo soo download galaysto wuuna fudud yahay downloadkiisu waa kan download link badii linkii buu ku diray dibna click badii emailkaaga geli ku dhihi ka bacdi sidaas ku download galaysan kartaa ama waa kan download for windows hadii imika aan ban eegno oo waxba isku sii dhibina video kala ka dhigno waa kan download finger desktop click bad ku tiljiidi waxoogaa yar buu yara qaadan uu ku soo download garayn ka bacdi waad install garayn sign in buu ku dhihi email bad gelin wuxuu ku keeni doonaa home-ka interface-kan imika aad aragto wabillahi tawfiiq waxaan insha Allah rajaynayaa cashirkan in uu muhiim ahaa ama uu ku saaciday qaabkii aad u ogaan lahayd dadka isticmaalaya wifi-gaaga cashirkan ku xiga waxaan ogaan doonaa qaabka dadka markaad ogaato iyo mobilada isticmaalaya aad uga xiri lahayd ama uga block garin lahayd qofkaas si isagoo dareemin qofkaas inaad ka saartay wifi-ga uu soo saaray laakiin uunan isticmaali karin ayaan arki doonaa cashirkan iyo labadii cashir ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay sida password-ga looga bedelo sida SSID looga bedelo ZTE wifi router waxaan rajaynayaa videogan haddii ku cajibay inaad like saarto subscribe aad nala share geliso asxaabtaada iyo cid walbeeto oo aad isleedahay way u faa'iideynaysaa ama videogan faa'iido u noqonaya oo waxba u qabanaya aad isleedahay waxaan kaa rajaynayaa in aad u share geliso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.